السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان أحمد وأنا سلام كبعد. markii la yiraahdo reer North Eastern ilaahay baa maaragtay beelaha Soomaaliyeed ku kala beeray deegaanada North Eastern meelo kala duwan hadda gaars ahaan waxa micnaha dega beesha cawsha qani cawda Cabdalle adu dadkaas magaalada dega gaars oo iska leh oo markii la dhaho deegaan ahaan ayaga u badan waa dad wada dhasho walaalo ah waa isku abti ilmo adeero adu ma kala baxaan ma garato waa isku tol waa tolane ma garato beesha ogaadeen kale ayagana ku dhaqan wajeer ayaguna way badan yihiinoo waa gari waa bahgari waa maqaabul waa maxamed subeer markii la waliba heer cabdille unde heer saaqmadaga meelahaas waa xisir baa loo yaqaanaa adigu kuwaasna waa ilaahay xaggaas ku abuuray marka waxaa isweydiin mudan ma arkaysid beesha ogaadeen wajeer degtaa oo intay qori isu qaataan ka dhiso hay ma arkaysid kursi waa la isku qabsadaa oo annagaa sidan iyo campaign iyo balaayo way dhici waa nin walba xora kursi inuu ku fariisto xataa dagoodiyaha iyo dadka kale la dega meeshaas wajeer waa la isku wada micnaha kursi waa la isku cariiriyaa ninka wajeer ka soo baxa ama dagoodiyaha ahaada ama ogaadeen ha ahaada beesha doonana ka ahaadee maruu kursiga ku soo baxo wuxuu aaminsan yahay inuu rawajeer yahay kursigan uusan ugu fadhinin beeshooda uu ugu fadhiyo wajeer laakiin kuwa dega gaaris way islaynayaan qori bay qaadanayaan ka dhaas isku hayaan mid baa maaragtay madaxa la jabin mid baa keliyaha maaragtay xabad lagaga dhufanayaa anaha cuqdad baa iskaga jirta way isu xanaaqsan yihiin waana dad walaalade cid kale oo la degtaay ma jirto waxa u dhow muuniyadaas iyo waxa u dhow wardeed iyo u dhow laakiin kuwaasna kuma haystaan kursi laakiin ayagii dhexdoodii ogaadeenka ha inaha hadii maba garanayaan siyaasigan xilliga doorashada socoto unbuu idin jecel yahay markuu kursigiisa helana wuu idinka tegayaayo ayagii siyaasiyiinta ahaabaa qaxwaha iyo maxaan ku rahdaa ogaalida ku kala goosanaya Nairobi idinma kala jecela maxaan ku rahdaa bal adinka isdaaya walaalaha tihiin oo magaaladiinin dhista oo inaad walaalo tihiin ogaada maba garanayaan cuqdad kan uu xanaaqsan yahay kan uu xanaaqsan yahay dadkiiba cudur baa ku kala dhex jiraba marka fariintaan ilaahay waxaa weeye heer gaarisow beeshayda layga beeray degan gaarisay cawsha qani iyo cawsaaqi iyo cabdalle iyo ma ogidin inaad wada dhalateen bal ogaada inaad walaalo tihiin siyaasigana yuusan isu kiintirin kursiga markuu helo idin ma kala jecla maalinka kursiga fuulo waa maxaa weeye dee muuyada uma duwanidin wax uu idinka jecel yahay ma jirto wax danaho maaragtay iskaga kin xiran ma jirto markay ka dhammaan rabto buu idin soo xasuusan oo dhiyaha kuurihiin ma isiisaan kaaliyo codeyseed reer baan isla nahay ku dayda reer wajeer ilbaxnimada kaga dayda aqoonta waa akhristeedii adinku reer gaaris ma socoto ma shaqeyso laakiin reer wajeer way akhristeen waa hebel u akhristay waa ka dhab wallahi runta idin sheeg anigu anaa waxaan arkay waa idin sheegaya heer gaarisow siyaasiga iyuusan idin kala dilin walaalaad tihiin kursiga kii kusoo baxa taasaa kusoo baxay markii campaign-ka socdo isku jijiida laakiin markuu campaign-ka dhamaado gacmaha isqabsada oo ogaada siyaasigan kursigiisii wuu helay dantiisii wuu gaadhay waxa isku soo haraya waa adinka iyo loodiin magaalada daaqaysa marka ayarna maadeerayaalow magaaladiina quruxsada horumarsada xataa qaar xaafadaha waxaa la sheegaya markii la hormarinayo wadooyinka nin reer hebel baan usoo duulaya wadada maaragtay la dhisaya annaga maaragtay reer baa naga qaadanaya maaha horumar weeye wadooyinka la dhisaya u ogolaada dowladda dhisaysa inay wadooyinka idin qurxiso laami idin saarto siweeji idin samayso
ilbaxnimada waa noocaas laakiin guryihiinni oo isku dhegdhegan oo meel wadada laga maray aan lahayn haddii lagu dhaho wadada ka durug oo wadada sharciga raac dowladda aday kuu fiican tahay kuu qurux badan tahay magaalada ilbaxaysa lo-dan balaayo magaalo dhex yaacaysa idinka tegaysa lo-da waxay magaalada uga tegi laadahay adinkii baan ogoleen horumarkii marka way aragtaa inay lo-dan lo la joogto marka hergaarisow ilbaxa markii dowladda ay meel wado ka dhisayso ku caawiya inaad maaragtay dhaganugulaataan oo wadooyinka laydin dhisayo waa qurxintiinni magaaladiinni ilbixinteedii iyo horumarkeedii ka qayb qaata dowladdu keligeed maaha inay xafiis bisa dhex fadhido wadadinka idin dhisaysaa biyay idin gelinaysaa marka waxaa weeye laga maaragtay laga qayb qaato horumarka magaalada ilbaxnimadana ha laga maaragtay qayb qaato ha lagu daydo wajeer iyo mandheera aad baan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu